Asalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan jeclaysanay inaan shirkadan cusub idiin soo bandhigno. Marka waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka ilaa dhamaadka aad daawan doontid. Haddii aad shirkadan ku qanacdaan, waxaa odhan doontaan muuqaalada kale faahfaahsan nooga soo duub. Commentiga nagula wadaagi doontaan insha Allah. Sidoo kale like saar muuqaalkan. Shirkadan magaceeda waxaa loo yaqaanaa Direct Funded Trader baa loo yaqaanaa. Waa shirkad team ka mid ah asxaabteeda ama Some Invest team ka mid ah isticmaaleen ay la soo wadaageen. Markaas idinkuna haddii aad ku qanacdaan oo shirkadeennii Fund Next ay dhaanto ama waxyaabo kaga wanaagsan tahay, waa odhan kartaan muuqaalka xiga u gudub. Commentiga ay gula wadaagi doontaan. Haddii kalena waxaa odhan doontaan shirkadan kama aanan helin. Markaas soo dhawaada saaxiibayaal. Marka koowaad shirkadan waxyaabaha ay khaas kala tahay aynu tilmaano. Waxay ku leeyihiin $3 ayaan each traded lot kasta aan kugu daraynaa. Trade kasta aad gashid $3 faa'iidaha bay kugu sii darayaan oo faa'iidada aad faa'iido aan ahayn ama khasaarihii aan ahayn faa'iidaha bay ku xisaabinayaan each trade aad gashid. Waxay ku leeyihiin profit target share kana waxa weeye ilaa iyo 90%. Waxaad trade garayn kartaa oo akoonkaad iibsato lagu laaban karaa ama mar wal oo aad target gaadhid lagugu darayaa ama lagu laaban ilaa iyo 1 milyan. يعني markastoo aad target gaadhid faa'iidada la baxdid macnaheedu ma aha in akoonkii hore ee tusaale ahaan 100,000 ee hore aad gadatay in lagu soo celinayo percentage kala lagu daray ilaa iyo 1 milyan gaadho. Refund fee-gu isagoo siisa lagu soo celin maaye isagoo 50% ah baa lagu soo celinaya. Tusaale ahaan haddii aad isku diiwaan gelisay $200 $300 baa lagu soo celinaya marka aad akoonka gudubtid. waay hoos baan u degnay intana waa intaas. shirkadan akoonada ay bixiso midkii asxaabta team ka mid la soo wadaagay ee uu soo isticmaalay baan idin sheegaya kaasaana fudud. mid evaluation ah iyo mid ay u yaqaaniin fast funding weeyaan. wax kale ma aha. evaluation waxa weeye laba phase baa la marayaa sidii hore aan u naqaanay. kan la yiraahdo fast funding kuna waxa weeye hal phase ayaa la marayaa. hal phase marka ku gudubtay baa akoonka uu siinay. kani 200 k ayuu gaarayaa akoonadiisu kana 100,000 baa ugu badan. one stage weeyaan wada arkartaan. kana waxa weeye two stage. hoos hadaynu soo degno halkan baad ka kala dooran kartaa. shaxdan haddaad timaadid already halkan baad akoonadii kugu dhan yihiin. evaluation halkaas ka dooran kartaa. fast funding halkan baad ka dooran kartaa. inagu waxaan dooranay fast funding standard. imise uu qaybsamaa balancegiisu waxa weeye 15,000 25,000 50,000 iyo 100,000. waxay isticmaalaan MT Trader 5 iyo kan kale ee loo yaqaano IO Trades oo isagu laakiin dhawaan soo baxaya laakiin marka 5 kuma lagu isticmaalaa. haye tusaale ahaan waxaa baan doornay akoonka 50,000 halkan bay faahfaahinta soo dhan nagu soo baxaysa. hal phase baad mari doontaa. haye trading period waqti lagu qaban maayo oo tusaale ahaan maanta haddaad target ka gaadhid ama 2 cisho ku gaadhid waad akoonkaaga horaakii lagaaga soo dirayaa funded ka ahaa. leverage-kiisu waa 150 marka kole waa mid iska dhexdhexaada ama yar baynu odhan karnaa. minimum trading days-ka 5 days weeyaan. halka hore aan ku laabtay trading period waxa laga wadaa waqtigaad ku trade garaysan yani tusaale ahaan akoonka inta haysanaysid weeyaan. marka waqti ka dhacaya ma jira akoonka wada haysan kartaa. kana waxa weeye maximum trading days waxa weeye 5 maalmood waa ugu yar. 5 maalmood gudahood haddaad ku gaadhid oo kale targetka laga rabay akoonka funded ka waa lagu siinaya. kana wax kale oo funded ka marka uu yahay weeyaan qaybtanna. marka ayad calaamada X baa la saaray macnaheedu waxa weeye minimum trading days ma laha. maanta haddaad target gaadhid faa'iidada la bixi kartaa. maximum daily loss-keedu waa 2,000 waa akoonka 50,000 2,000 weeye. maximum overall loss ama maximum loss kuna waxa weeye waa 3,500. profit target ka laga rabo waa 5,000 5%.
10% hoos soo deg. Halkan refundable feegiisa lagu soo celinayaa waxa weeye ama feega imika lagaa rabaa waa 350. hadhow marka lagu soo celinayana boqolkiiba 50 baa lagu soo boqolkiiba 50 feegaaga ah baa lagu siinayaa. macnaha waxa weeye waxa ku kordhaya 100 iyo saaid. haddii aad akoonka iibsanaysid halkan baad coin code-kaad gelinaysaa, card ama crypto labada kaa rabtidna waad dooran doontaa, kadibna apply baad odhan doontaa, start baad odhan doontaa, halkaasaad kasii socon doontaa. kan kale maxaan uga tegay evaluationka isaga qofkii rabaa wuu dooran karaa. isaga wuxuu u qaybsan yahay akoonada 5,000 buu ka bilaabma, 10,000 akoon 15,000, 25,000, 50,000, 100,000 iyo 200,000. akoonka labadeeda 100 aan eegno. akoonka labadeeda 100 waa kan phase 1 iyo phase 2 waad maraysaa. inta hore dhan way kaga siman yihiin, maximum loss kaasay ku kala duwan yihiin 10,000. haye maximum loss kaas waa daily losskii, kanna maximum loss 20,000. profit targetka 16,000 baa laga rabaa akoonka 200,000. lacagtiisuna waxa weeye $979. hadhow marka refundable lagu siinayana waxa weeye iyadoo boqolkiiba 50 lagugu soo daray iyo 979 kale ayaa lagu siin doonaa. tusaale ahaan waxa uu 1,500 meelahaas noqonaysa ama 1,400. haye haddii aynu hoos soo daadegno waxaan oo dhan wada akhriyi doontaan. halka starter-kan baynu iska qaadanaa, aggressive-kani waa akoon kale. anigu shirkad kasta oo aan soo qabto wuxuun baan eegaa akoonka ugu fiican. ma jirto wax la yiraahdo akoonno kala duwan baan ka qaadanaya. akoonkeeda ugu fiican ka qaado, shirkadaas ula macaamil bas. akoonno kala duwan weligaa ka qaadan, sababtoo shirkadu waa isla shirkadii uun. keeda aad istaadid shuruudahan baad ka bixi kartaa uun qaado. waxba ha qaadin mid kale oo isla shirkada uun ah shuruudaheeduna uu ka yara adag yihiin, midna ha qaadan. sidaan funded next shirkadii la odhan jirayba aan u samayn jirnay, aynu uga qaadan jirnay akoonka stellar 1ka ah ee 1 face-ka ah, kaasoo kaliya aynu ka qaadanay, kuwa kale aan isaga dhaafin. ayuunba intaana uga qaadanaa kaasoo kaliya akoonkaas. halkaa waxaan jeclaan lahaa ina fastka ku dhufataan intana iska akhridaan, kadibna akoonka haddaa ku qanacdaan. iyadana muuqaal baan kasoo samayn doonaa. muuqaalkan haddii aad xagga commentiga noogu soo qortaan shirkadda waanu ka helnay, muuqaal kale nooga soo duub akoon kasta oo laga furto iyo shuruudaha waan kasii samayn doonaa insha allah. halkan baynu maraynay. waxaa ka mid ah free retry-gan free retry-gan waxaa ka mid ah yani waad ku ceshan kartaa akoonka haddii aad shuruudaha jebin, waad ku ceshan kartaa. waxyaabaha lagala baxo, lacaga lagala baxo waxaan baa ka mid ah crypto ka mid ah, kaararka Visa card iyo Mastercard baa ka mid ah, Google Pay baa ka mid ah, Apple Pay baa ka mid ah, waad arki kartaan. Ethereum baa ka mid ah, kan kale oo iyadana lacaga crypto ah ayaa ka mid ah. waxaasoo dhan baa ka mid ah. bal halkan haddii aynu eegno shirkadda horta maxaa laga yidhi, shirkadda dadku waxay ka yidhaahdeen bal aynu fiirin. waa kan Trustpilot baan nimi, direct funded trader weeyaan. waxa ay haysataa 4.2. 5 maxaa ka dhiman, 0.8 baa ka dhiman. dadka reviewerska ah ee reviewer ka dhiibtay waa maxay, waxa weeye 273 reviewers. intaasoo qof baa ka dhiibtay aragtidooda iyo shirkadda wixii ay kala kulmeen. haye waxyaabaha ugu badan ee la siiyey waxaa ka mid ah 5 star, 5 star baa siiyey, 4 star intaasoo qof baa siiyey halkaa yara cagaaran. kole 2 starna dad baa siiyey, 1 star kan intaasaa siiyey. markaa kole waad akhriyi doontaa waxyaabahan. dad shirkadda ka cabanaya iyo dad ammaanayaba way leeyihiin. qofkii ugu dambeeyey waa kan 1 star buu siiyey, shirkaddu ka cabanayaa. they cancelled my account, akoonkayga way cancel gareeyeen. haye sababtoo ah inactivity, yani akoonkaanu malaa waqti iska haystay baa laga yaabaa. markaa support teamku waxaasay u sheegeen hidden rule weeyaan ayuu leeyahay. qofkani Benjamin la yiraahdo isagu ammaanaya 5 star buu siiyey. markaa wuxuu lahaa markii hore waan ka shakisanaa markii bilowgii shirkaddan, laakiin hadda waxaan odhan karaa it is the best, waa ta ugu wanaagsan. markaa isagu uu ammaanaya. qofkan 6 casho ka hor isagu uu ammaanaya 5 star buu siiyey.
halkaas waxaa leeyahay halkaas idinoo akhri kartaa qofkan 10 abriil ka bixiyey great prop film buu leeyahay kole saas ma usii baari doontaa halkan si all baa odhan kartaa kadibna saas u akhri kartaa waxaad eegi doontaa 5 star iyo 1 star ay badankood u badan yihiin 5 star isaga badan yihiin 1 star qofkan oo kala ka mid ah very bad buu ku leeyahay weeyaan kan laftiisu waa la mid marka saas aad u akhri doontaa haddii aad shirkadan ku qanacdaanna dee muuqaalo kaloo badan ba ka samayn karnaa haddii aanad shirkadaha profilmka adigu aanad ka helin waxaanu kuu haynaa brokerka loo yaqaano just market kaas oo lacagtaada aad ku shuban kartid lacagtaada reelka ah ku shaqaysan kartid faa'iidada kala bixi kartid idinkii suuqin buu idin dhaxaynayaa un marka saaxiibayaal commentiga insha allah igula soo wadaaga haddii aad rabtaan inaan muuqaalo kan ka duubo haddii aad rabtaan in shirkadeennii hore ee Funding Next awalba in 3 sano ma la shaqaysan haddii aad rabtaan muuqaalo dheeraad kasii duubnaa kaas ila soo wadaaga insha allah haddana Funding Next muuqaalo dheeraad naga sii haddii kalena waxaa direct funded trader kan muuqaalo dheeraad naga sii just market waa muuqaalo dheeraad ka siin karaa imka si toos aan u soo laabanay telegramkin waa active telegramkina waxaad kaga soo biiri kartaa linkiga descriptionka youtube-ka muuqaalkan hoostiisa yaala commentigana insha allah nagu soo wara like-tana insha allah ha ilaawina si ay dad badan oo kale u gaadho markastoo ay like badato muuqaalkeena dad badan oo kale gaaraya Soomaali badan oo kale nagu soo biiraysa teamkeena inoo balaaranaya marka idinkuna inta nagu caawiya insha allah like-ta nagu caawiya anagana muuqaalada iyo wixii suuqa ka jiro dhammaan insha allah idila soo wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh